kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah shirka madaxda maamul goboleedyada oo ka furmaya Dhuusamareeb iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee magaaladaasi ka socda oo aan idiin hayno. Gaalkacyo dagaal ayay ku waabariisatay u dhaxeeya dagaalkaasi warkeena ayaad ku daawan doontaan. Somaliland shaaca ayay ka qaadeen in ra'iisul wasaare Khayre uu u ogolaaday in madaxweyne iyo caasimad ay qaataan. Hay'adda Somali Community Foundation waxaa aqoonsi caalami ah ay ka heshay dowladda federaalka dalka Mareykanka iyadoo ay soo dhaweeyeen madaxda ugu sareysa hay'addaasi tallaabada ay ugu guuleysteen in aqoonsi caalami ah ay ka helaan dowladda Mareykanka. Xasan Sheekh weerar culus ay ku qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mareykanka oo u muuqda in uu garab istaagay Taiwan iyo Somaliland in xiriir xooggan ay yeeshaan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Warkii oo dhan waa maalinimo Sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha July 2020. Warkaas oo dhanna waxaad kala socotaan Hiil Shacab TV. aynu ku horeynee Dhuusamareeb waxaa maanta ka furmaya shirka ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada dalka oo labadii maalmood ee ugu dambeysay baaqday iyadoo halkaasi ay ku wada sugan yihiin guud ahaanba hoggaanka dowlad goboleedyada dalka. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa maanta lagu wadaa in uu si rasmi ah uga furmo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka kaasi oo ah mid ay isha ku wada hayaan guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galaya shanta madaxweyne maamul goboleed ee dalka sida Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug oo gogasha nabadeed fidisay. Intiisa badan waxaa shirka diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka qaranka 2020-2021, dib u eegista dastuurka iyo khilaafka maamulada kala dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya. Ajendaha maanta ee furitaanka shirka ayaa si hor u dhaca waxaan uga ogaanay qaar ka mid ah dadka wada qabanqaabada shirka waxaana la sheegay in khudbado ay madasha ka jeedin doonaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo haatan ku wada sugan Dhuusamareeb. Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidamo dheeraad ah la dhigay jidadka muhiimka ah ee magaaladaasi. Shirkan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee ay yeeshaan madaxda maamul goboleedyada tan iyo markii uu burburay golihii iskaashiga dowlad goboleedyada. Gabagabadana waxaa la filayaa in shirka warmurtiyeed laga soo saaro kaasi oo ku aadan waxyaabaha miiska saaran iyo weliba sidii looga wada hadli lahaa. Sidoo kalena waxaa dadka darsa arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ciid ku shubay guud ahaanba qodobkii ugu weynaa ee ay ka doodi lahaayeen maamul goboleedyada, taasi oo keentay in shirka muddo 2 maalmood ah furitaankiisa uu dib u dhaco. Waxaana madaxweyne Farmaajo uu ayiday go'aan ra'iisul wasaare Khayre uu ka hor sheegay golihiisa wasiirada oo ahaa in doorasho xilligeeda ku dhacda ay lagama maarmaan tahay haddii taasi aysan imaan xasilooni dari dastuurka ah iyo mid amni dalka uu wajihi karo. Laakiin madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyay in ay habboon tahay iminka in doorasho xilligeeda ku dhacda dalka ay dhacdo isla markaana uu isaga diyaar u yahay. Shirka ayaa sidoo kale waxa uu yahay mid dad badan ay shaki gelinayaan in ay qayb ka yihiin abaabulkiisa gacmo aan ahayn gacmo Soomaaliyeed. Wixii warar ah ee ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu eebe ka raali noqdo. Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa saakay ay ku waabariisatay dagaal iyadoona faahfaahin laga helayo dagaalkaasi iyo cidda uu dhaxeeyo. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal saakay waabarigii ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dagaalka oo ahaa mid rogaal celis ah ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad ku sugan xaafadda Garsoor ay weerar ku qaadeen ciidamada ammaanka kuwa Puntland.
sidoo kale dagaalka ayaa xalay soo bilowday waxaana la sheegay in uu ka dhashay ka gadaal markii maleeshiyaadka saakay weerarka rogaal celiska soo qaaday dagaal looga saaray koontarool ay uga sugnaayeen magaalada Gaalkacyo. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale burburiyay waxyaabo maanka dooriya oo yeelay guri ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadkan. Ilaa haatan ma cadda inta uu la eg yahay khasaaraha naf iyo maal ee halkaasi ka dhashay, laakiin dadka deegaanka ayaa bilaabay in halkaasi ay isaga barakacaan. Xaaladda iminka waa ay degan tahay, iyadoona la sheegayo in dhinacyadii dagaalamay aysan masaafo fog isku jirin oo ay aad isugu dhow yihiin, markastaana la filan karo in gacanka hadal kale uu dhex maro. Somaliland ayaa la ogaaday in ay ka heshay ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre in loo yaboohay madaxweyne iyo caasimad inay qaataan hadiiba ay Soomaaliyeed ku soo laabanayaan. Siyaasiga Cabdiqaadir Jirde ahna gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee xisbiga wadani ayaa ka shifay qorshe aan shaaca laga qaadin oo dowladda federaalka Soomaaliya la tagtay Somaliland, kaasi oo miiska wada hadalka uu keenay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Cabdiqaadir Jirde ayaa sheegay in Xasan Cali Khayre uu miiska wada hadalka soo dhigay in Somaliland la siinayo madaxweynaha iyo caasimadda, isla markaana caasimadda ay noqon karto haddii la isku afgarto Hargeysa. Maalintii dhaweed shirkii la isugu tagay Djibouti, ra'iisul wasaare Khayre waxa uu la yimid shirka Somaliland. Waxaanu siinaynaa madaxweynaha iyo caasimadda haddii waana iyada oo aan la wada hadalba oo aan waxba la isla meel dhigin. Marka fikirka ay naga haystaanba waa inaynu nahay dad la soo xareysan karo oo ay isleeyihiin sidii berigii hore isaga yimaadeen maantana isaga soo xareysa, ayuu yidhi Cabdiqaadir Jirde oo warbaahinta la hadlayay. Jirde ayaa sidoo kale sheegay in midnimo dhex marta Soomaaliya iyo Somaliland aanay xalin karin xilligan dhibaatada qolo kasta gaarkooda u haysata, isagoo sheegay in Soomaaliya dhibaatada haysata ay gaar u tahay isla markaana Somaliland mar walba ictiraaf ay doonayso. Ugu dambeyntiina, hay'adda Somali Community Foundation oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee dalka ka howlgala ayaa waxa ay ku guuleysatay in aqoonsi caalami ah ay ka hesho dowladda dhexe ee dalka Mareykanka, iyadoo tallaabadan ay tahay mid guul weyn u ah guud ahaanba madaxda iyo dadka gargaarka sida joogtada ah uga hela hay'addan. Hay'adda Somali Community Foundation ayaa waxay ku guuleysatay in ay gacanta ku dhigto aqoonsi caalami ah oo ay ka hesho dowladda federaalka Mareykanka. Tallaabadan oo si weyn ay ugu wada farxeen guud ahaanba maamulka iyo shaqaalaha hay'adda. Xiriir uu la soo sameeyay Hiil Shacab TV, xiriiryaha guud ee hay'adda Somali Community Foundation Xaaji Muuye Shamcuun ayaa waxa uu shaaca uga qaaday in cid ilaale iyo ciddii doonaysa iminka waxay ka dambeeya Somali Community Foundation in xiriir toos ay la soo sameeyaan oo dhinaca caawinaadda ah. Nambarada shaashada saaran ay ka heli karaan wixii caawimaad ah, isla markaana Hiil Shacab TV ay kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada sida joogtada ah idinkugu soo gudbino. Waxa uu yiri waxa alle uga mahadcelinaynaa sida uu inoogu fududeeyay inaan gacanta ku dhigno warqadan muhiimka ah oo muddo 4 sano ah aynu baadi goobaynay. Waxaana rajo badan ka qabnaa in iminka wax badan ay inoo fududaadaan, isla markaana dowladda Mareykanka maanta wixii ka dambeeya waxa ay si rasmi ah u aqoonsatay Somali Community Foundation oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. Somali Community Foundation ayaa waxa inta badan ay caawisaa dadka danyarta ah, waxaana iminka ay howlo samafal ka wada qaybo ka mid ah Shabeellada Hoose, Jubbaland, Puntland iyo Somaliland. Waxaana qorshuhu yahay in sanadaha soo socda hay'addan gebi ahaanba ay gaarto dhulka Soomaalida ay degto. Fadlan wixii caawimaad ah waxaad si toos ah kala xiriiri kartaa nambarada shaashada ku qoran. Warkii caalamkana waa naga inta.